بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 258 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري ومسلم. إخوة الإسلام والإيمان maanta taariikhda islaamka ay tahay 23 bishii 9 Ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 16 bishii 5 sanadka 2020 waxaanu ku jiray mawduuceena ku saabsanaa ramadaanka iyo qaybihiisa kala duwanaa khaasatan qaybtii u dambeysay markaa ahayd ku saabsanayd 10 al-awaakhir min ramadaan tobanka dambe ramadaanka iyo laylatul qadarka iyo wixii laga yiri waxaanu qaadanaynaa saaka mawaadiicdan horaan sheegnay waa soo yar kala hormarinaynaa waxaanu ka soo hadalnay cashirkeena ugu dambeeyey laylatul qadarka tobanka dambe inuu nabigu yidhi laga raadiyo oo ku dadaala waxaan soo maray in maartay laylatul qadarka qofka ilaahay la kulmiyo ducada ku ducaysanayo waxaanu soo maray maartay laylatul qadarka fadliga uu leeyahay waxyaabahaas soo qaadanay maanta waxaan qaadanaynaa soo hormarinaynaa in badan ba dad maartay walaalaha qaybo fara badan ma intay la soo xiriireen message-na ay soo direen ayaa waxay dhaheen zakat waqtigan waa dhow yahay zakatul fidriga noo soo hormari bay dhaheen inaan u dambeysiyaan rabay zakatul fidriga noo soo hormari bay dhaheen idan marka warkoodii ana jiibana waa ila qumanaatay zakatul fidriga ayaanu hormarinay saaka aan qaadanaynaa zakatul fidriga waxay ku saabsan maanta iyo bariba insha Allah taala zakatul fidriga xadiidkan nabiga kaleey salaatu wasalaam Abdullah ibn Umar uu ka warinayo Abdullah ibn Umar xadiidkan warinayo Bukhari Muslim bay soo saareen wuxuu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay nabigu wuxuu farad yeelay zakatul fidri buu farad yeelay farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu farad yeelay zakatul fidri buu farad yeelay saacan buu farad yeelay saac buu farad yeelay oo min tamrin timir ah aw saacan buu maartay farad yeelay oo min shaciirin haad ah hal qamadiga u yar ag weeye cala alcabdi buu ku farad yeelay adoonkii iyo walxurri qofka xorka ahaa walxurri iyo wadhakari kii laba iyo walunsaa kii maartay dhadigii iyo maartay dumarka ahaa والصغير كي يرى والكبير كي وينا من المسلمين كمذا وأمر بها النبي وأمري أن تؤدى إن لبحية زكاة لقته قبل خروج الناس دتكو انت إنه أبحن إلى الصلاة صلاة انت إنه أبحن إخوة الإسلام والإيمان حديث كان دور الرموت أي نوع عدي النبي عليه الصلاة والسلام وكو عدي كو حاكمذا زكاة الفدر وإنه واجبتها فرض أيتها زكاة الفدر inay farad tahay oo waajib tahay wahada huwa raajih waajib laakiin yakun noqonaysa waa qofka mustatiica weey oo maartay haya habeenkaas bishii shawaal la arkay ee ciida iyo maalinkeeda ciida la tukanayo qutulyoonkooda wax ka badan qofka haysta bimaana habeenka iyo maalinkaas habeenka ciida iyo maalinkeeda salaada la tukanayo qutulyoonkiisi wax ka badan ninka haya ninkaasi ku waajibtay marka xadiidka wuxuu nabigu noogu sheegay zakatul fidrigu inuu waajib yahay farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakatul fidri idan zakatul fidrigu inay waajib tahay waana sida jumhuurtu ay isku raaceen weeyaan ilaa dad yar mooyaan in zakatul fidrigu waajib tahay baan xadiidka ka qaadanay nabigu noo cadeeyay waxaa kaloo nabigu xadiidka ku sheegay qaybta labaad noociyada la bixinayo waxa la bixinayo saac oo min tamrin uu yiri ساعة تمرة هي ساعة الشعيرة شعيرته وحالي هذا هاد وي والنوع قمدي قوي ويان لبضع النوع مكشة لكن نوع يكلنا النصوص كلا هي حديث كلا عديس ساعة من تمر أو ساعة من شعير وقضب كلا بعض وي يعني إن الزكاة الفطر واجب تهي
maadada la bixinayo. qaybta saddexaadna dadka laga bixinayo ku waajibaysa waa kuwa cala alcabdi, addoonka iyo xorka, midka xorka ah, iyo ninka maaragtay ninka ragga ah, iyo qofka dumarka ah, iyo ka yar iyo ka weyn. intuba asnaaftu bini aadam ka koobnaa rag iyo dumar, qof yar iyo qof weyn, addoon iyo xor, dhammaantood inay ku waajibayso oo min almuslimiina ka mid a. taasaa shardiga, waa inuu muslim yahay. muslimka waxaa loogu qeydayaa addoonka gaalka aheed adu aad leedahay iyo qofka muslimka uu leeyahay laga bixin maayo. ninka hadduu zawjadiisa ahayd ahlu kitaab oo gaala ka bixin usmahaye, waa inuu muslim yahay qofkaas, rag iyo dumar, qof weyn iyo qof yar, addoon iyo xor oo muslimiina wey. taana waa qodobka saddexaad wey xadiidka noo cadeeyey. faradkeedii buu nabigu sheegay, maadada la bixinhayo, cidda laga bixinhayo ay ku waajibtay, saddex weeye. qaybta kale afraad ee nabiga xadiidka noogu sheegay waktiga la bixinhayo. wa amara biha, wuxuu nabigu amray an tuaddaa in la guto zakadaas qabla khuruuji nnaasi ila salaat, dadku intayna salaada u bixin in la bixiyo waa waktiga sunnada ugu fiican wey. laakiin waxaa banaan bay culamadu dheheen maaragtay qabla alciidi ama qabla maaragtay fidri biyawmin aw yawmayn, maalin ama laba maalmood ciidda ka hor inaad bixisi way banaan tahay. laakiin sunnada ugu fiican intaana salaada loo bixin inaad bixisi wey. waaga markuu beryo salaadiina weli la aadin inaad masaakiinta siisi wey. way noo iman doontaa xikmada loo jideeyey cidda la siinaya, maaragtay waanu qaadan doonaa xadiidteeda. afartaa arrimood buu ikhwati filaahi nabigu noogu cadiyey xadiidka. wujuubu zakaat alfidri, zakaatulfidriga waajibitaankeeda inay waajib tahay. maadada la bixinayo timir, shaciir iyo bur iyo maaragtay wixii lamidka iyo timir, intaasoo dhan. laakiin laba ka miduu noo sheegay oo timir iyo maaragtay shaciira. qodob kale saddexaad dadka ay ku waajibayso, rag iyo dumar, addoon iyo xor, iyo maaragtay mid yar iyo mid weyn oo muslimiinta ka mid a. qodobka afraad ee nabigu xadiidka noogu sheegay waktiga la bixinayo, wakti quruubi maaragtay intaan dadku ayna u bixin salaada. afartaa axkaam ayaa xadiidka nabiga noogu sheegay. waxaa su-aal mudan marka aanu dib ugu noqonaynaa, saacan min tamrin baa lihi wa saacan maaragtay aw saacan min shaciir, labadaa maado waan garanay. waxaa kaloo nabiga ka sugnaaday cabdullahi bin cumar iyo keyrkii, cabdullahi bin cumar naftirkiisa uu sheegahayo ama keyrkiiba sida abi saciid alkhudri oo kale, wuxuu noo cadaynayaa inuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam, inuu leeyahay saciid alkhudri, uu leeyahay abu saciid alkhudri, waxaanu bixin jiray kunaa nukhriju zakaata alfidri saacan min طacaamin aw saacan min shaciirin aw saacan min tamrin aw saacan min aqidin aw saacan min zabiibin. yani waxaanu bixin jiray waktiga nabiga zakaatulfidriga saac cunto ah, dacaamka marka wax kasoo laquudaysu noqonaya, iyo saac shaciira, mid timir ah ama caano fadhiya ama zabiib ah. intaaba waan bixin jiray buu abu saciid alkhudri iyo xadiidkiisa markaa yuu ku warinhayaa. idan inay marka intaasoo nooc ayay ka kooban, caano fadhiya, timir, maaragtay dacaam, zabiib, intaasoo dhan ba in la bixin karo. idan beriisna waa lamid weeyaan, beriisna waa lamid weeyaan, waa la bixin karaa. idan intaasoo nooc baa la bixin karaa. aan usoo noqono marka haddana dhinaca kale, saaco maxaad ahayd? saac waa af carabi, soomaaliga ma aqan, suus baa layihahda, wax saas oo kale suus weeye. marka saacu waa afar mud weeye, afar mud weeyaan. mudow maxaad ahayd? waxaan soo raacin doonaa insha allahu tacaala, qof kasta uu arki doonaa maaragtay culba ama bahalshooda sawirkeed baan soo dhigi doona, xadiidka soo raacinhayaa, oo mudkii markii la beegay uu la ekaado ay isla ekaadeen. culimmadu marka waxay leeyihiin saacu waa afar mud weeye. mudkuna waa qof labadiisa dhuub oo hal mar uu cantooba ku qaado wey, qof aana aadna u sacab weyneyn, ku sacaba yaraan ahayn oo dhexdhexaada. laakiin markii la kiileeyo wuxuu noqonayaa suuski, mudkii wuxuu noqonayaa 500 gram ilaa 600 gram, 500 gram ilaa 600, bimacnaa nus kiilo ama nus kiilo iyo maaragtay 100 gram oo maaragtay dheeri ka. saa darteed haddaan nus kiilo aan ka qabno 500 gram hadduu noqdo, hadda shoodan aan soo maaragtay mudkii lagu qiyaasay
oo intii mudka waxa ragga ku beegeen ay ku dayeen 500 gram baa ku qoran shoodan idan haddaan dhahno mudki 500 gram buu noqonayaa 4 meelood min 500 gram waa 2 kiilo weyn idan ugu hooseyn 2 kiilo ugu badnaana 3 kiilo dhaxdhaxaadka ugu fiicanna 2 kiilo bar weyn saaci 2 kiilo bar raashina ayuu qofku inuu bixiyay tahay waxyaabaha lagu beego anu ma keenin hadda magaceeda ma garanayo oo Soomaaliga waxa lagu beegahay shooda lagu beegahay magaca la yiraahdo oo mudka ay laag tahay magac ahaan ma garanayo laakiin shood ahaan baan idin soo raacinaya sawirkeeda insha Allah taala idan ikhwati fillah halka waxaanu ka qaadanay zakaatul fidriga inay waajib tahay waana sida raajixa zakaatul fidriga nooca la bixinayo iyo zakaatul fidriga cidda ay ku waajibayso inay maartay dadka muslimiinta ah rag iyo dumar xor iyo maartay adoon ku yar iyo ku weyn cunuga caloosha ku jira ma laga bixin may lagama bixinayo waa intaas joogta weeye marka goormayna waajibaysaa waxay waajibaysaa qorraxdu markay dhacdo oo bishii shawaal la arko ayay waajibaysaa sida jamhuurtu ay ku tageen qorraxdu markay dhacdo bishii ramadaan maalinka u dambeeyay markay qorraxdu dhacdo oo la afuro oo bishii shawaal la arko maartay bacda al-ghurub ash-shams ayay waajib noqonaysaa qolana waxay leeyihiin sida xanaafta ma ahe بعد طلوع الفجر مالك عيد واجب مركو بريه واجب حسابي لين اذا لكن قولك هو راجحه وجمهور العلم يكون تجان بعد ما ارتي غروب الشمس والرحض مركي دعده مالك قدام بيس رمضان بينك عيد اي تاي قبره مركي دعده واجب حساب وفرض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة بفرض الى النبي سوس ومن ساعة فرض الى من تمر تمره أو ساعة بفرض إلى من شعير هادئ على العبد بكفرد إلى دونكي والحر قفك حركها والذكر كي لبكها رقها والأنثى دمركي والصغير كي يرى والكبير كي وينا ومن المسلمين كمذا وأمر بها النبي وحو أمري أن تؤدى إن لبحي زكدي قبل خروج الناس دتك انتين وبحن إلى الصلاة صلاة انتين وبحن إذا بعد الصلاة هدو قفك بحيو صدقة ومن الصدقات بين قونسة قبل الصلاة إن بحسب على الرباب أما بعد الصلاة ما صح سواء نقاضي دونا إن شاء الله تعالى إذا هلك وحنا قاضي إخوتي في الله زكاة الفطر واجبتان كذا ما دد الله بحينها يو دتك يكون واجبيسو هي وقتك الله بحينها يو أي أنه هالكاس أن كقاضنا إلهي سبحانه وتعالى وحنا ويديسنا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حق نتصنون رزاق حق راعتان كيسا بشهر رمضان بركيسا كوا لو قدم إضافين إلهي سبحانه وتعالى ونقدقه ليلة القدر كقوة لا كل مية وإلهي وجودنا حريستان إلهي سبحانه وتعالى نقدقه هل مربع حديث يكون علن هيا الحديث 258 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري ومسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.